وحيد أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مالك حديبية سيدنا علي مالك حديبية النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي بخاري مسور بن مخرمة حديبية النبي عليه السلام مدين مكة إنه قلام بيربين عمره السعودين ولو ديدي حديبية ماشي لليه تشيرين إلا هذا كنترول ضدك اللي عليا إلا هذا يالله مركاد جدو كب حدان أما قرون كب حدان هل كشميسي اللي يراده برتا كنترول كالوك على صار ضدك برتا وهي حديبية هل كي نمانك إسبارة ديك تقولي إسبارة الله حرم بوليس بات الله ضدك اللي جسوا عليه هل كي حديبية مركز النبي هشيس كقالي هشيس كي وحقرية النبي إنون نقضه سنة كدمر صوع مريست هذه هالكلام نقول أيوه ضدكم عمره صوع حرتين إن لحلال نقضه حولها اللي جورعه تيمها الله يسكحي رعم الله جابيه هل كان الدب لوغا نقضه ولا حلال نقضه واي فإن حسرتم فما استيسر من الهدي واي نبي مرة دو هشيس قالي الصحابة دي والله الله أمر بوسور رقية حولها هلا قالوا تيمها هلا حيرو هلا حلال نقضه هوشا هلا سمايه الصحابة دي أمر كان النبي قال ترتمي تشري قف دقاقا لغا واي قف حول قليا ماله اتما حيره يسمى له دقل كان لو ذا الذي والله ولا فور رصدي النبي waxay ku noqotay arrin aad u culus in saxaabadiisi ay amarkiisi qaadan waayaan ummatul muuminiinka la socday Salama kamid ahayd khaymadeeda ay joogtay oo goobta ma inay joogin nabigu isagoo aad uga walwalsan arintiina aad ugu culus tahay buu iska soo baxay Salama ku u sheegtay maanta waxa qabsaday wuxuu maanta waxa ay qabsaday waxa la yaab la way arintaas aan faray saxaabadii amarkii baan siinayaa qof yeelayo dhaqaaqayana ma jiro wal iska wada fadhiya qof talaabo qaadaya ma leh inta markuu yiri tala saxaabadii ku badbaadeen amarkii nabiguna ku fulay يا Salama bixisay fi sahih al-Bukhari hada rasuulka ilaahay waxba saaha u qaadanin haddii hadalkii la diiday falkii samee way sameynayaan adigu tag cidnaha la hadlin neefkaagii soo qabo geel ahaa adigu gowra ninkii timaha kuu xiiri jiray u yeer kaalay hebel timaha kuu xiiro markay arkaan waxaan laga yaabaa inay rajo qabaan in waxay soo dago oo loo fasaxa maka inay galaan arintiiba culays ku noqotay laakiin markay arkaan fal ahaan inaad u samaysay way sameynayaan haba u caroonin nabiga haddii uu caroodo wax badan baa ka dhalan kara haddii wax kala ka soo baxo wax badan baa dhalan kara axkaam baa ka dhalanaysa waxay tiri qof dambaha la hadlin adigu tag neefka gowrac ninkii kuu xiiri lahaa u yeer timahaaga xiir way samayn doonaane nabigu ma labayn waa soo baxay qofna lama hadlin neefkiisii buu soo qabtay waa gowracay ninkii buu u yeeray timaha xiir lahaa timihii buu iska xiiray halkaa markuu marayo geelii baa lagu yaacay waa la wada gowracay timihii baa la isu wada xiiray qaarkood murugaday ka murugaysnaayeen amarkii nabiga ay fulin waayeen mindidii la isugu xiirayay baa la isku dili gaaray see la isugu dili gaaray kan loo xiirayana waa maqan yahay kan u xiirayana waa murugaysan yahay madaxii la xiirayo mindidii jiidhayn baa la arkaya xataa kaada yaqtulu bacduhum bacdan saxaabadii waxay ku badbaadeen in cara nabigu timaado nabigu wuxuu ku badbaaday in saxaabadiisii wax ku dhacaan oo meesha taariikh xuni ka bilaabato amarkii nabigu in la fuliyo wuxuu ku badbaaday taladii wanaagsaneyd ee Salama radiyallahu anha wa ardaaha ay maalinka bixisay cidda la talinaysa waayo waa ciddii aadamaha ugu qiimo badnayd hadday cilmi iyo caqli noqoto taladeedii waa lagu badbaaday
saxaabadiina amarkii nabiga ay fuliyeen sanadkii dambaa la soo cumraysta oo maka la tegey taasina waxay ahayd talo wanaagsano nabigu markaa maalinkaas imtixaan iyo culays badan baa soo food saaray soo ay saxaabadiisi amar ka qaadan waayeen arrin murugo badan bay ahayd arrin hadduu nabigu hadal dhaho ama habaarana wax badan ka dhalan lahaa bay ahayd marxaladaasoo kaleetana wax badan baa dhici kara hadday caro ilaahay tahay hadday caradii rasuulka tahay hadday cadaab soo dega tahay haddii xukunkii amarkii sharcigoo la fulin waayo tahay wax kastoo bala iyo dhiboo dhalan lahaay taladii ummu salama radi allahu canha wa ardaaha baa lagu badbaaday warkuna waa fii saxiixi albukhaari